munaasabadan oo ahayd mid loogu mahad celinaya shaqaalihii kaalinta lixaad leh ka soo qaatay shaqada TV-ga caalamiga Universal gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa ka dhacday maqaaxida ama hoteelka lagu magacaabo Jodri ee waqooyiga magaalada London. intii munaasabada casho sharafta ahayd ee socotay ayaa maamulaha telefishinka caalamiga Universal Xamduun Abubakar wuxuu u mahad celiyay dhigiisa ama maamulaha maqaaxida Jodri Master Imran sida wacaneed oo soo dhaweeyay shaqaalaha telefishinka Universal. casho sharafta kadib ayaa waxaa munaasabadu guddoonsiinayay shahaadooyin kala duwan shaqaalaha telefishinka caalamiga waxay ka dhacday istuudiyaha telefishinka Universal halkaasi ay ku sugnaayeen maamulaha telefishinka Xamduun Abubakar, madaxa farsamada Cabdalla Mudiir iyo waliba madaxa barnaamijyada iyo wararka Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige. ugu horeyntii munaasabada ayaa waxaa daahfuray madaxa wararka barnaamijyada Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay una mahad celinayo dhammaan shaqaalaha telefishinka Universal meel waliba dunida ay ka joogaan sida wacaneed ee howlkarnimada ah ay u shaqeeyeen sanadkan. bismillaahir rahmaanir rahiim. farxad gaar ah ayaynu ahayd inaynu caawa isu nimaadno qaar ka mid ah shaqaalaheena telefishinka Universal ee xarunta London iyadoo ujeedadu ay ahayd marka haddii howl la qabto ama barnaamij uu socdo marka howl dhamaataba in aynu isugu nimaadno inaynu iska xog wareysano sida wax u dhaceen isla markaana aan isu mahad celino sababtoo in la isu mahad celiyaa waa wax aad u wanaagsan oo diinteena nasiixa ayaa nafaraysa. markaas farxadaas kadib shaqaalaha Universal aad bay u dadaaleen ee London iyo bishii barakeysaneed ee Ramadaan iyo shakhsiyaad kale oo iyaguna kaalin wacan ka qaatay. sidoo kale Cagmadhiga ayaa ku soo dhaweeyay mikrofoonka Xamduun Abubakar si asaguna ugu marti qaado mikrofoonka Cabdalla Mudiir oo ah madaxa farsamada sidoo kalena ah maskaxdii ka dambeysay barnaamijkan aadka u quruxda badan. intaanan marka u galinin marka hore waxaan oran lahaa waxaan jeclahay Xamduun oo ah maamulaha oo dhinacayga midig taagan inuu shahaadooyin guddoonsiyo qaar ka mid ah shaqaalaha oo iyagu fursad u helay iyo dadaalkooda inay ku guuleystaan iyadoo aan hal qof ugu yeeri doono kadibna la guddoonsiin doono. aad baad mahadsantihiin caawa isugu imaano mahad gaar waxaa u celinayaa farsamayaqaaniinta oo normal dadka waxay dhahan Ramadaanka wax soo saarka waa yaryahay laakiin waxay tuseen dadka ama ay juhdi zaa'id u bixiyeen in wax soo saarkooda ay dabal ka dhigaan oo maasha Allah waxyaalo qurux badan ay soo saareen aadan ugu mahad celinayaa. aad buu u mahadsan yahay Xamduuni. markan waxaan jeclahay inaan qaybtii shahaadooyinka aynu galno waxaan ugu horeyntii u yeerayaa farsamayaqaankeena qiimaha badan ee qaaliga ah Abubakar Mahdi Abubakar in la guddoonsiyo shahaadada oo aan u arko runtii telefishinkuna u arko dad badan oo magaciisa markay maqlaana ay u arki karaan inuu yahay nin karti badan oo dadaal badan oo howlo badan qabtay gaar ahaan bishii Ramadaan markii ay dhamaatay iyo intii lagu jiraba oo barnaamijkii weynaa ee quruxda badnaa ee ciida oo habeenno badan dadka Soomaaliyeed ay daawadeen oo ah ninkii aad uga shaqeeyay. marka si aad aan Abubakar ugu mahad celinayaa waana ku soo dhaweynayaa in shahaadadiisa la guddoonsiyo. aad iyo aad Abubakar Mahdi asagoo halkan noo istaagaya waxaan jeclahay inaan u yeero madaxa qaybta farsamada ee telefishinka caalamiga ee Universal Cabdalla Umar Mudiir oo runtii juhdi badan iyo culays badan saaray hawsha intii Ramadaanka lagu jiray ka hor iyo kadib mar haddii marka ay noqotay in qiimeyn lagu sameeyo shaqaalihii isaga laftiisa uu mutaystay kartiyuna ku mutaystay waa soo dhaweynaynaa shahaadadan iyo ka badanna waa istaahila Abubakar. marka hadaan siinay Cabdalla Umar Mudiir ayaan u yeerayaa markan madaxa farsamada. aad iyo aad buu mahadsan yahay ninka lagu magacaabo Cabdalla. waxaan markan jeclahay nin saaxiibkeena jira oo naga maqan laakiin kamida dadka mutaystay oo dadaalkiisa ka waday halka uu joogo waa Axmed Daahir oo kamid ah farsamayaqaaniinta telefishinka caalamiga ee Universal oo runtii har iyo habeen isagu u taagan barnaamijyada socodsiintooda iyo ka qayb qaadashadooda dhinaca farsamadana ka tirsan. Axmed Daahir maadaama uu sanala joogin waxaan jeclahay inuu u guddoonsiyo madaxa farsamada maadaama uu madaxii farsamada u joogo. aad iyo aad waxaan jeclahay inaan markan u yeero saaxiibkeen oo farsamayaqaana oo runtii aan oran karo dadaalkiisu aad buu u badan yahay waa Jibriil Maxamed Jibriil waliba kama tagayo Safi Films oo ah koox runtii qiimo badan oo dadka dheehda ama arka waxyaabaha ay sameeyaan iyo quruxda iyo dadaalka iyo farsamada inay aad u dadaal badan yihiin. marka saaxiibkay Jibriil oo isaguna ayaga ka tirsan telefishinka aad howl uga qabtay ma sha Allah waa u yeeraya.
mahadsanid waxaan kaloo jeclaa inaan u yeero waxaa jira nin aad u dhalin yar oo ka tirsan wariyaasha telefishinka Universal oo runtii dadaal badan muujiyay barnaamijyo badan ka qayb qaatay waliba bishii Ramadaan intii lagu jiray xilliga galabtii oo dadku ay aad u liitaan xagga baahida isagoo wuxuu ahaa nin energy badan ay ka muuqatay iyo dadaal oo runtii aan guubaabana ula joogi jirnay halkan waa Maxamed Siciid As-Saxaaf oo nin aad u dhalin yar oo barnaamijkaas juhdi badan galiyay aadna u dadaalay mar aha barnaamijka kaliya barnaamijyo badan oo telefishinka ayuu ka qayb qaataa marka isagana waa u yeeraya Maxamed سعيد الصحاف سيالكن شهادة لوجسيو كلن إيه وحكرسي كلن إيه وحكرسي وبرنامج قيمة بدن وطن أديات ما شاء الله أدبو ماتسيه waxa kale oo aan jecelahay inaan u yeero gabadheena runtii qiimaha badan ee aadka u dadaashay Nimco Axmed Xuseen oo ah gabar soo saare ah aan oran karo qiimaha ay sameysay barnaamijka dad badan ay dheehdeen telefishinka Universal intii lagu jiray bisha Ramadaan oo soo saare ay ka ahayd oo editor ay ka ahayd oo hubiye ay ka ahayd waa Nimco Axmed Xuseen waxa kale oo ay ka qayb qaadatay maaha oo kaliya barnaamijkaas kulan iyo wax kororsi aad bay uga qayb qaadatay oo Maxamed hadaysan dhinaciisa taagneyn guul ma aanu gaarin ayaan filayaa gabadha kale iyaduna kamid ah hablaha aadka codka wanaagsan barnaamijyo badan ka daaya telefishinka bishii Ramadaan aad u dadaashay barnaamijkii ciidana runtii gabadhina la socodsiisa ahayd iyo barnaamijyo kaleba waa gabadha lagu magacaabo Jamiilo Xasan Garuun aad bay u mahadsan tahay waa gabadheena aan oran karo waa farshaxaniste marka la fiiriyo waa Chicha Amin oo iyadoo aan la joogin laakiin u qaadi doonto Jamiila oo kamida shaqaalaha lana socota iyada lafteedu iyadoo waqooyiga Amerika jirta barnaamijkan quruxda badan ee caawa dhacay waxaan jeclahay inaan u yeero Ali Naaji oo nin aad u dhalin yar oo farsamo yaqaan ma sha Allah oo cameraman oo waliba film qaada markaan leenahay filmka videoga kaliya maaha filmka kale ee caadiga ee sawirka aad u taqaanaan editingka xagga jarjarida xagga diyaarinta wararka xagga barnaamijyada bishii Ramadaan aad buu runtii u dadaalay ka horna uu dadaali jiray kadibna dadaalkaas waa ka filaynaa hadii alla ka dhigo Ali Naaji waa u yeeraya saaxiibkay waxaan jeclahay inaan u yeero Caliim marka aan raahno waxa laga yaabaa inay istiraadaan magacan xagu ka yimid Caliim waa nin aad u dhalin yar waa nin runtii aad juhdi u galiya barnaamijyada telefishinka Universal ka baxa qayb wacan ka qaata oo ku xusuusan karno barnaamijyo aad u qiimo badan marka aad daawataan sidii u qurux badan yihiin sida barnaamijka Iwad sheekada oo kale barnaamijkii aad ogeydeen oo kale ee gorfaynta iyo markasta iyo waqti kasta oo telefishinka Universal uu waxyaba Caliim aad iyo aad ayaan maaragtay u soo dhaweynaya Caliim thank you وهاجاج عبد الرشيد محمد نور عبد الرشيد رشكا عبد الرشيد وانن ادو داير ما شاء الله قعنتي سو اي في عنتهي وفرسميقان وكاميرامان ووريه ka qayb qaatay barnaamijyadii bishii Ramadaan iyo waliba barnaamijyada kale ee ka horeeyay iyo kuwa ka dambeeyaba isaga laftiisana waa soo dhaweynaynaa oo waxaanu ku sharfeynaa shahaadadan Cabdi Rashiid Maxamed Nuur Cabdi Rashiid Rashka soo dhawow waxa kale oo aan jeclahay halka inaan uga yeero nin kale oo ka tirsan farsamada oo aad u dadaal badan oo magaciisa la yiraahdo Cabdi Xakiim Alfaqi waa cameraman waa waxa la yiraahdo farsamada waa diyaariye يعني dhinacyo badan ayuu ka qayb qaataa marka muuqaalkiisa markaad aragtaan magacyadooda aad maqli jirtaan farsamada ma sha Allah intaas iminka aan halkan ka sheegay oo aanu daawanay waxa weeliye in kale oo badan oo hawla ku maqan oo iyaguna wax mutaystay oo iyaguna wuxuu ay gaari doonaan bi Ilaahay Kariim waxa kale oo jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo farsamayaqaaniinta halka aad ka aragtaan mooyaane farsamayaqaaniinta kale ee hawlaha ku maqan sida Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Biibaye iyo Cabdiqani Maxamuud Ba oo iyagana si gaar ah aan ugu mahad celinayo juhdigii iyo dadaalkii ay sameeyeen bishii barakeysanada Ramadaan ka hor iyo kadib
farxad bayna noo tahay inaynu halka isugu nimaadno cashadiina aanu ka qayb galnay waxaa ka cudur daartay dad badan oo ahayd inay nagala qayb galaan waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa culimmadan aadka aynu u jecelnahay gaar ahaan culimmada sida joogtada barnaamijka ugala qayb qaatay Universal iyo Ramadaankii ugu dambeeyay barnaamijyada diiniga ah markaan ka bilaabo Sheekh Maxamed Idriis markaan ku xijiyo Sheekh Saciid Maxamed Faarax markaan ku xijiyo Sheekh Bashir Yusuf Shiil markaan ku xijiyo Sheekh Maxamed Ibrahim Kinyawi markaan ku xijiyo Sheekh Maxamed Cabdi Xasan Shiino iyo markaan ku xijiyo Saciid oo isaguna ka socday masjidka Qubo runtii aad bay u dadaaleen daawadayaal waxaadna daawateen barnaamijyo badan iyo muxaadarooyin badan oo ay nagala qayb qaateen bishii barakeysan ee Ramadaan waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadceliyo wariyaasha telefishinka Universal iyo farsamayaqaanada gudaha dalka Soomaaliya iyo kuwa daafaha dunida dadaalka iyaguna ay muujiyeen maamulka sare ee Universalna waxaan uga mahadcelinayaa fursadda qiimaha badan oo ay shaqaalahooda u fidiyeen markastana ay ula heelan yihiin daawadayaal waxaan halkan ka muujinayaa inaan halkan ka ballan qaadayno biidnillaahi kariim ilaahay baa ballanqaadka iska leh inaynu nahay hal koox ama hal tiim oo ujeedadoodu ay tahay hal bartilmaameed ama hal taarget oo ah bulshada in loo soo bandhigo warar qiimo badan barnaamijyo tayo leh oo dhinaca siyaasadda bulshada iyo arrimaha dhaqaalaha intaba adinkana waxaan idinka filaynaa gacan wacan telefishinka Universal waa telefishinkiina koobaad ee Soomaaliyeed aad baadna u mahadsantihiin inaad munaasabadan quruxda badan nasiib u yeelateen inaad daawataan marka hore horta waxaan u mahadnaqayaa barnaamijkan maamulka soo diyaariyay barnaamijkan oo ahaa casho iyo shahaado la siinayay shaqaalaha Universal taas oo ah dhiirigelin u ah shaqaalaha Universal waxay u noqotay wax dhiirigelin ah waxaan u mahadnaqayaa oo kale ama shahaadooyinka aan qaadanay ma aha shahaadooyin annaga kaliya aan qaadanay waa shahaadooyin ama mahadnaq aan u qaadnay shaqaalaha Universal adduunka meel kasta ay joogaan marka waa arrin aan aad ugu farxayo waxaa tahay farsamayaqaanada kamid ah farsamayaqaanada TV gaar ahaan barnaamijka soo wada barnaamijyada qaar muhiimka waa asleedahay maxkamada TV wallahi barnaamijka soo socda barnaamijyo badan jira kullee laakiin barnaamijku ugu soo horeeya waxa la yiraahaa maadaama aan anigu fanka iyo waxa aan qabilsanahay waxa la yiraahaa xarfaha fanaaniinta oo xaraf kasta oo kamid ah xarafka fanaanka xarafka uu ka bilaabmo ayuu ku soo gali doonaa magaciisa waa barnaamij fani ah kulleeba aad loogu heli doono maxaa ugu baaqaysaa ugu dambeyn aniga interviewgan soo gaabaneen shahaadooyinkan iyo abaalmarinta la siiyay shaqaalaha sidee dhiirigelin ugu noqon doontaa ma laga yaabaa in next year ama sanadka soo socda in noqoto shahaadooyin aad u fiican shaqaalahan dhiirigelin ay ku noqoto waan filayaa hadduu alla idmo kulleeba shahaadooyinka qaabkan hadda la isku siiyay iyo sidan caawa la sameeyay si ka qurux badan oo ka weyn shaqaalahana intaqaanaa intan hadda ka soo qayb gashay in ka badan inay ka soo qayb galaan yaan filayaa insha Allah aad baa u mahadsan